السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. kusoo dhawaada xalqadeeni saddexaad ee podcastga alqalam podcast. waa aniga Dr. Fawzi Cali Maxmed ah. maanta waxa aynu ka warami doonaa insha allahu tacaala xalqadeeni saddexaad ee jacaylka ilaahay. sidaan soo sheegnay, waa jacaylka ilaahay loo qaado waa jacayl dhab ah, waa jacayl ka duwan jacaylada kale, waa jacayl dhan gaar ah leh, waa jacayl qalbiga si kale u soo gala, waa jacayl caqliga ku soo horeeya oo qalbiga ku dambeeya. haddaba jacaylada kale ee dadku isku qaadaan way kala duwan yihiin, ilaa dhowr nooc oo loo kala qaybiyo ilaa 3 nooc. waxaa jira alxub alhawaa oo ah tacalluq alqalbi bimaa laysa maxmuudin, inuu qalbigu ku tacalluqo wax aan wanaagsanayn ama aan fiicnayn, oo ka naftu mar walba ay iska jeclaanayso wax aan wanaagsanayn oo aan maslaxad ugu jirin, midtaasna yacni wax dan ah aan ugu jirin adduunyo iyo aakhiraba. sidoo kale waxaa jira jacaylo kala duwan sida jacayl uu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay. dhowr nooc uu ilaahay ku sheegay oo jacayl ah, sida shaqaf. suleykha markii ay jeclaatay nebi yuusuf, qad shaqafaha xubba, ayuu ilaahay subxaana watacaala ku masaray. marka waxaa jira shaqaf oo kii ay suleykha jacaylkii indhabeelka ahaa, jacayl yacni meeluu ka imiday ama ka bilaabmay ayaa la odhan karaa qalbigu ahaa. sidoo kale waxaa jira jacayl wud uu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay. ilaahay sidoo kale wuxuu ku sheegay alshawq, wuxuu ku sheegay ilaahay qur-aankiisa jacayl shawq ah. sidoo kale waxaa jira alcishqi la yidhaahdo, laakiin ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisu wuu ka duwan yahay noocyadaas oo dhan. waa jacayl dhadhan ah gaar ah leh, waa jacayl qalbiga si kusoo gala, si kale kusoo gala oo ka bilaabma caqliga kuna dhammaada qalbiga. jacayladan oo dhan qalbiyada ka bilaabmaa, laakiin jacaylka ilaahay caqligu ka bilaabmaa. ilaahay subxaana watacaala daba jacaylkiisu 3 tiir unbuu ku taagan yahay. alkhawf number 1 waa inaad ilaahay adigu ka cabsanaydan aad jeceshahay. sidoo kale qodobka labaad alxub walrajaa, yani inaad ilaah jeceshahay jacayl adigoo rajeynayo jannadiisa iyo la kulankiisa. ومركز توينات كنت عايشتها وترى اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك. مركز جعلك إلهي سبحانه وتعالى 3 تير أمبكتاني. مركز أدونك إلهي وتشعلاضو أو إستغن وتشعلاضو أو مرور بكنت عايشت اللهم ارزقني حبك ويحب من يحبك ويحب إلى عمل يقربني إلى حبك. ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى لك أكاهذي أيا وحو بيجري مرولبا من عرف الله أجوبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه. يعني قفكي إلهي قرتا أحبه وجعلادا، ومن أحب الله أطاعه قفكي إلهي جعلادنا وأطيعه، ومن أطاع الله قفك إله أطيعنا أكرمه إله كرامية. ما سلتين سودة وهذا إلهنا وكل جنات كيسة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.